wiilkan magaciisu waa Toob. Waxa uu galaaska dhexdiisa ku ciyaarayaa game, waana arday aan ku fiicnayn waxbarashada, laakiin maalin ayuu ka helayaa lacag fara badan gamekii. Kadibna si uu lacagta ula baxo, kaarka adeerkiisa oo waayeel ah ayuu ku shubtay. Suuqa ayuu aaday, waxa uu soo iibsaday gaari qurux badan. Maamulihii kalaaska ayaa u yeeray, waxa uu ku yiri matiida arday fiican, waa inaa waalidka keentaa. Sanad cusub ayaa la gelayaa, sidaasna kuma fiicna. Laakiin waa uu iska sasabayaa, waxa uuna ka soo baxayaa xafiiskii. Gaarigiisii ayuu u tagay oo baakinka ku jira. Ardaydii oo dhan ayaa la yaaban sida uu lacagta u helay, laakiin saaxiibadiis ayuu ka furay albaabka, waa uuna kaxaystay. Magaalada ayay ku soo baashaaleen, casho ayuu u soo gaday. Kadibna waxa uu xilli dambe yimi gurigii. Adeerkiis ayaa ka furay, waana saaxiibka guriga u jooga. Aniga gaariga soo gelinaya guriga, ayuu ku dhahay, si aabbaha uusan u ogaan. Waa uu isku naxay. Aabbihii ayaa ku dhahay, xagee ka keentay lacagtan aad ku khamaaraysid? Waxa uuna ku yidhi, game ayaan ka helay. Aabbihii ayaa ku dhahay, waxbarashadaada waa inaad xoogga saartaa, lacagtan meel kuma geynayso. Waana canaantay. Waxa uu gaaray xilligii jaamacadda uu bilaabi lahaa, laakiin waa mid ka sii daraya. Waxa uuna waqtigiisii oo dhan geliyey gamekii khamaarka ahaa. Aabbihii ayaa ku yidhi, ma lagu soo aqbalay jaamacaddii? Haa ayuu yidhi, lacag badan maaha laakiin. Aabbihii ayaa ku yidhi, waa inaad gashaa jaamacadda dowladda, kuguma khasaarin doono lacag badan, sababtoo ah waxba baran maysid. Sanad kadib, waxa uu qaatay go'aan si noloshiisa uu horumariyo. Gamekii ayuu dhilid gareeyey, dhammaan qalabkii gameka ayuu keenay dukaankan si uu lacag jaban uga siisto. Laakiin ninkii dukaanka ayaa arkay mid ka mid ah oo jaban, waxa uuna ku yidhi, waxaan qashinka ku dar. Waa uu xanaaqay ilaa uu muraayadii ku jebiyey. Ninkii dukaanka ayaa xanaaqay, dharbaxa ayuu ku dhuftay. Toy waa uu cararay, gaarigiisii ayuu soo qaatay. Waxa uu jidka ku arkay aabbihii, waana isa soo raaceen. Aabbihii ayaa ku dhahay, qaado lacagtan, jaamacadda aad rabtana ku gal. Laakiin wuxuu yidhi, iguma filna, ganacsi ayaan rabaa iyo waxbarasho labadaba. Aabbihii waxa uu siiyey dahabkan, waa uu iibsaday. Lacagtii ayuu soo qaatay, jaamacaddiina waa uu bilaabay. Laakiin isma beddelin, welina waxa uu wadaa dhaqamadiisii hore. Waxa uuna iska ciyaarayaa basketball iyo dharaamo aan loo joogin. Saaxiibadiis ayaa canaanatay, waxa ayna ku leedahay, nin weyn ayaa tahay, mustaqbalkaaga ciyaarta ka daa oo shaqayso. Waa uu soo baxay, waxa uu yimi halkan oo lagu xayeysiinayo cuntooyinka iyo mishiinno cusub. Kadibna gabadhan ayaa u sharaxday qaabka ugu fiican ee maamacaanka lagu sameeyo. Aad ayuu uga helay. Taa waa uu soo dhaqaaqay, waxa uuna mar kale yimi suuqii. Ninkan oo meel cidlo ah ku samaynaya macmacaan, waxa uuna ka xaday naqshadii uu ninkani u samaynayay. Waxa uu ku soo laabtay gurigii, cuntadii ayuu isku dayay inuu sameeyo, waa uuna ku guulaystay. Kadibna aabbihii iyo hooyadii ayuu tusay, waa ay dhadhamiyeen ilaa ay ku qanceen. Aabbihii ayaa u yeeray ninkan si uu wiilkiisa uga caawiyo inuu furto maqaayad, kuna dhex taalla moolka. Maqaayaddii ayuu furay, waxaana kala shaqaynaya adeerkiis. Maalintii xigta ayuu yimi maqaayaddii, waxa uuna weydiiyey adeerkiis, maanta inta qof ee timi oo wax ka gadatay, laakiin lacagta ayuu tusay. Taa waa uu niyad jabay. Maalintii xigtay Taa waxa uu aaday jaamacadda, waxa uuna ku jiraa imtixaan. Hal mar waxa soo dhacaya telefoonkiisa, waxa uuna arkayaa in adeerkiis soo wacay. Macallimadii ayaa ku dhahday, dhig moobilka, haddii kale waxaan kuu sheegayaa maamulka. Laakiin uma uusan joojin, waana qabtay telefoonkii. Adeerka ayaa ku dhahay, waa dhammaatay baradhadii, ee soo dhaqso, soona iibi. Markiiba waxa uu soo gaday jawaan baradho ah, waxa uuna yimi dukaankii. Waa uu farxay, maadaama dad badan ay wax ka iibsadeen. Maalinkii xigtay, Taa waxa uu yimi ninkii iska lahaa moolkan, waxa uuna ku yidhi, qiiqa baradhada aad shiilayso waxa ay madow ka dhigtay xagga sare ee moolka, waa inaad hagaajisaa, haddii kale waxaan kansali doonaa kontaraaga, dibadda ayaana kuu saarayaa. Taa iyo adeerkiisa waxa ay isku dayayaan inay hagaajiyaan, ranjigana marshaan xagga sare. Isla markiiba shaqaalaha ayaa ku yidhi, dadka moolka ayaad dhibaysaan, caawa imaada oo hagaajiya. Habeennimadii ayay bilaabayaan shaqadii. Hooyadiis ayaa caawinaysa. Mar kale security-ga ayaa u imaanaya, waxa uuna ku leeyahay, waqtigii waa idinka dhammaaday, soo baxa. Taa waxa uu isku dayayaa inuu lacag siiyo security-ga si uu hawshiisa u guto. Laakiin security-gii waa uu xanaaqay. Hooyadii ayuuna ku leeyahay, cunugaaga tarabiye, anigu lacag ma qaato. Isagoo xanaaqsan ayuu ka soo baxayaa moolka. Kadibna hooyadii ayaa u sheegaysa inay baxayaan oo ay dib ugu laabanayaan waddankoodii China. Lacago badan ayaa lagu yeeshay, mana bixin karto. Taa waa xanaaqay, wuxuuna leeyahay ma baxayo anigu.
keligin iska taga laakiin maamadii ayaa ku ooynaysa waa uuna diidayaa subaxnimada ayuu u raacay faamilkiisii aeroboortka isagoo murugaysan halkaas ayayna ku kala dhaqaaqeen taw waxa uu dib ugu soo laabtay dukaankiisii waxa uuna nadiifinayaa xagga sare laakiin maamulihii ayaa u imaanaya waxa uuna u sheegayaa in dukaankiisa la xiray alaabtanna uu ka qaato isagoo murugaysan ayuu imaanayaa gurigii laakiin waxa uu arkayaa gabadhan albaabka warqadda ku dhejisay waa uu akhriyey waxa uuna arkay in deyntii lagu lahaa faamilkiisa ay dawladdu la wareegayso gurigan bisha soo socota warqaddii ayuu jeexjeexay waxa uuna ku riday qashinka saaxiibtii ayaa arkaysaa waa uuna ku dul oynayaa xaaladda haysata darteed waxay u ballanqaadaysaa inay caawin doonto taw waxa uu aaday bangiga si ay u siiyaan lacag dayn ah waxaana uu sheegayaa in familkiisa lagu leeyahay dayn badan isagoo niyad jabsan ayuu kasoo tegayaa waxa uuna gurigiisa ku samaysanayaa fikrad cusub isaga iyo adeerkiis taw waxa uu iibinayaa kombiyuutarkiisii iyo dhammaan alaabtii uu haystay si uu lacag u helo adeerkiis ayaa u imaanaya waxa uuna leeyahay waad guulaysanaysaa ha isdhiibin saaxiibtii ayaa soo wacday waxaana u sheegtay in maanta ay tahay maalintii registrationka si uu u yimaado jaamacadda habeennimadii ayaa la gaaray gurigii ayuu yimi kadibna wuxuu arkay adeerkiisa oo dhulka jiifa dhiiggana uu ka socdo isla markiiba waxa uu keenay cusbitaalka waxa uuna ka walwalsan yahay xaaladda adeerkiis maalin kadib adeerkiis ayaa caafimaaday waxa uuna cusbitaalka ugu keenay cuntadii ay wada samayn jireen waxa ay ku laabteen shaqadii suuq fiican ayay heleen kastambar badan ayaa ka iibsaday taw waxa soo wacay aabihiis waxa uuna ku yidhi imow China laakiin waxa uu sheegayaa in ganacsigiisii uu rajo fiican yeeshay deynta lagu leeyahayna uu isagu ka bixin doono aabihi ayaa ku dhahay ogow lacagta lagu leeyahay waa 40 milyan waa uu naxay taw waxa uu arkay isagoo suuqa maraya kambani weyn oo soo saara cuntooyinka kadibna ballan ayuu ka qabsanayaa kambaniga si uu la kulmo waxa uu imaanayaa maalintii xigtay isagoo labisan laakiin waxa uu weynayaa maamulihii kadibna gabadhan shaqaalaha ayuu tusayaa cuntada uu sameeyo waa ay fiirinaysaa waxa ay tahay waxa ayna ku leedahay cuntadan nama anfacayso waa qaali lacagteedu taw waxa uu ka soo baxayaa xafiiskii isagoo aad u caraysan saaxiibtiis ayuu imaanayaa caradii oo dhan ayuu dusha u saaray isagoo ku leh markasta aniga ayaa rafaada imana caawinaysid waxa uuna ka soo xirtay albaabkii guriga adeerkiis ayuu imaanayaa waa uuna ku dul oonayaa subaxii dambe toy waxa uu soo bedelay naqshadii bacda cuntada ku xirnayd kadibna waxa uu ku soo laabtay xafiiskii kambaniga laakiin security ayaa celinaya waa uuna ka soo baxayaa waxa uuna fariisanayaa stationka shaqaalihii kambaniga ayaa arkaya kartoonkii uu kaga dhex tagay xafiiska kadibna waa ay ka helayaan cuntadii nasiib wanaag maalintii xigtay waxa xafiiska kula kulmay madaxdii shirkadda oo dhan waxayna u sheegeen inay aad uga helaan cuntadiisii maalintii xigtay taw waxa uu soo dhacday waraaqad waxaana loo sheegay in la aqbalay waa uu farxayaa dhammaan shaqaalihii ayuu howlgelinayaa waxaana la rabaa badeecad fara badan oo la iibsho dhammaan waxaa kor u kacay wax soo saarkii alaabtiisa waxa ayna si fiican u gashay magaaladii oo dhan 2 sano kadib taw waxa uu noqday billionaire faamilkiisii oo dhanna waxa uu ku soo celiyay Japan isagoo u gaday guri qaali ah waxa uuna noqday wiilka ugu da'da yar ee billionaire loogu yeero aday kasta oo nolosha ku soo mara haddii aadan isdhiibin waa hubaal in maalin aad najixi doontid daawadayaal filimkeena maanta intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa waxaan si xushmad leh idinkaga codsan doonaa inaad muuqaalka like saartaan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo boqotay channelka qaansada filmadana inaad subscribe noo saartaan waa ku mahadsantihiin daawashadiina